fiiri siduu daraagisku gabadhan Soomaaliyeed mustaqbalkeedii adduun iyo aakhiraba u burburiyay. Sababta ugu weyna waa inaysan Soomaaliya lahayn booliis gaar ah oo daraagiska la dagaalama. Haddii aad maalin caday ku socoto laamiyada caadiga ah ee Muqdisho, markii aad cabaar socoto waxaad arkaysaa qof dhalinyaro ah oo labisan oo adiga ka qurux badan oo wadada ku hurdoonaya asagoo taagan. waana irbado iyo kaniiniyaal iyo daraagis kala duwan oo uu isticmaalay. Dadweynuhu waa ay arkaan waana ay dhaafaan maxaa yeelay normal ayay ka tahay magaaladan Muqdisho. Daraagiskuna dekedaha ayuuba ka soo dagaa, habab kale oo dhulka ahna waa lagu keenaa. Bal fiiri gabadhan Soomaaliyeed markii ay weysay camal ama shaqo ay qabato, sidoo kalena waalid iyo walaal ka danqada oo ilaaliya ay weysay, intay cirbado isku soo durtay ayay laamigii soo istaagtay iyadoo istiin ah. Ragga, baabuurta iyo dhammaan dadweynuhuna hareeraheeda ayay marayaan ayagoo wax normal ah u arka maxaa yeelay mar walba ayay arkaan. Sidoo kale saacadihii la soo dhaafay waxaan baraha bulshada aad ugu arkayay labadan gabdhood oo dhalinyarada ah oo la sheegay ayagoo tahriib u sii socda in la qabtay, kaligoodna aysan ahayn ee dhalinyaradii ugu badnayd in halkaas lagu qabtay. Marka haddii dhalinyaradii shaqo la'aan darteed qaybna ay u tahriibayaan oo badaha ugu dhimanayaan, qaybna ay daraagis ku isticmaalayaan laamiyadii, waa qolama cidda ay dawladdu u shaqayso oo ay wax u qabataa. Kani waa muuqaalkaygii koobaad ee dhibaatada dhalinyarada. Qof walba oo dhalinyaro ah waxaan ka codsanayaa inuu muuqaalkan like saaro, siina share gareeyo si uu meel dheer u gaaro.